xadiiskani waa mid dardaarana oo waxyaalo tiro badan laga faa'iidayo. Saxaabiga jaliilka Cabdulaahi ibn Cabbaas ilaahay ka raali noqday ayaa waxa uu yiri maalmaha ka mid ah rasuulka ayaan gadaashiisa ahaa kadibna waxa uu igu yiri wiilkan yarow waxaan ku barayaa kelmado ilaahay awaamirtiisa ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalinaya ilaahay awaamirtiisa ilaali wuxuu ka reebayna iska ilaali wax kasta oo u baahan tahay hortaadaad ka helaysaa haddaa cid wax weydiisanaysid ilaahay kaliya wax weydiiso haddaa cid kaalmo ka dalbanaysidna ilaahay kaliya kaalmayso ogow hadday ummadoo dhan ay isugu tagaan si ay ku anfacaan kuma anfici karaan ilaa shay ilaahay kuu qoray mooye haddii bulshadoo dhan ay isugu tagaan inay ku dhibaateeyaan oo ay dhibaato ku gaarsiiyaan kuma dhibaatayn karaan ilaa shay ilaahay kuu qoray mooyaane qalinkii waa la kor yeelay suxuftiina waa engegtay waxaan ka faa'iideynaa xadiiska isaga ah in haddaa cid wax weydiisanaysid ilaahay kaliya aad weydiisatid haddaa cid kaalmaysanaysid ilaahay kaliya inaad kaalmaysato sidoo kale qofku hadduu ilaahay awaamirtiisa ilaaliyo wuxuu ka reebana iska ilaaliyo in isagana ilaahay ilaalinayo waxaan kaloo ka faa'iideynaa shay kasta ilaahay qadarkiisa ayuu ku xiran yahay hadduu wanaag yahay iyo hadduu dhibaato yahayba ilaahay baa kuu haya qadartuna waa mid la jaangooyey oo rabbi subxaanahu watacaala u jiday aad baa u mahadsantihiin muuqaalkan sii faafi si walaalo fara badan ay uga faa'iidaystaan